bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkaani waa xogwada janal. qodobada maanta aan idiin haynana waxaa ugu waaweyn wuxuu madaxweyne farmaajo uga baahan yahay siyaasiyiinta ka soo jeeda somalilan ee ku jira hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya. weerar madaafiic ah oo xalay lagu qaaday saldhig ciidamada jabuuti ay ku leeyihiin magaalada beledweyne iyo wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaasi ka soo baxaya. maxaa halkaas ka socda? waxaan sidoo kale idiin haynaa madasha xisbiyada qaran oo dalab xasaasi ah u dirtay beesha caalamka. sargaal ka tirsanaa wasaaradda maaliyadda soomaaliyana waxaa xalay lagu dilay magaalada muqdisho. yaa dilkaasi ka dambeeyey? ma dhabbaa in al-shabaab ay sheegatay? waxaannu sidoo kale idiin haynaa aabbaha dhalay ilhaan cumar oo u geeriyooday cudurka coronavirus. somalilanna waxaa ciidamo fara badan ay maanta dhigtay magaalada laascaanood. sababtu maxay tahay? qodobadaas iyo kuwo kaloo muhiim ah ayaad uga bogan doontaan xogwada janal. aan ku bilaabnay sidaad ku maqlayseenba, siyaasiyiinta dowladda dhexe ee ku matala somalilan ayaa magaalada muqdisho waxa ay ku qabteen kulan guud. siyaasiyiinta dowladda dhexe ku matala somalilan oo magaalada muqdisho ku qabtay kulan guud ayaa muujiyey sida ay u diidan yihiin ugana xun yihiin habka madaxweyne farmaajo uu u maareeyey heerka ka qaybgalka wadahadallada dowladda dhexe iyo maamulka somalilan oo ka furmay magaalada jabuuti 14 juun 2020. madaxweyne farmaajo oo islamarkii uu dalka dib ugu soo laabtay 15 juun 2020 la kulmay siyaasiyiintan qaarkood ayaa isku dayay in uu xal u helo arrintan. ha yeeshee natiijo fiican kama aysan soo bixin kulankii gaabnaa oo dhex maray madaxweyne farmaajo iyo matalayaasha somalilan. waxa ayse u sheegeen madaxweynaha in ay si adag ugu jawaabi doonaan go-aankiisa ku aadan wadahadallada dowladda dhexe iyo somalilan oo ay ku sheegeen in aan wax tala ah laga siinin. kulan kale oo la xiriira xal u helidda tabashada xubnaha baarlamaanka iyo siyaasiyiinta kale ee somalilan ku matalaya dowladda dhexe ayaa lagu wadaa in 16 ilaa 17 juun 2020 ee sanadkan uu ka dhaco magaalada muqdisho. ujeedada kulankaas waxa ay xubnaha ka midka ah baarlamaanka federaalku ku sheegeen in madaxweynuhu raadinayo xal looga gaarayo arrintaani. ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda mudane mahdi maxamed guuleed oo uu hogaaminayay siyaasiyiintaasi somalilan ee uu la kulmay madaxweyne farmaajo ayaa u muuqda in uu ka tegayo islamarkaana luminayo taageeradii weyneed ee uu u hayay madaxweyne farmaajo, isagoo isku dayaya in uu si muuqata ugu dhowaado dhinaca ra-iisul wasaare kheyre. gudoomiyaha degmada dayniile jacfar, ra-iisul wasaare ku-xigeenka guuleed iyo xildhibaan gaafow iyo sidoo kale siyaasiyiin iyo xildhibaano taageersan ra-iisul wasaare kheyre ayaa dadaal badan geliyey sidii mahdi maxamed guuleed looga saari lahaa gacanta madaxtooyada laguna biirin lahaa safka ra-iisul wasaare kheyre. waxa ayna arrintaani xiriir la leedahay tartanka doorashooyinka ee sanadda 2020 ilaa 2021 ee la filayo inay ka dhacaan waddanka. madaxweyne farmaajo waxa uu u baahan yahay codka iyo taageeridda xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda somalilan, taas oo haddii uusan wada helin ama uusan ku guulaysan intaba laga yaabo in ay kala dhantaasho hankiisa in uu xilka madaxtinimada waddanka dib ugu soo noqdo. warar kala duwanna waxa ay ka soo baxayaan weerar loo adeegsaday hoobiyeyaal oo xalay lagu qaaday xerada ciidamada amisom gaar ahaan kuwa jabuuti ay ku leeyihiin gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan. madaafiicda oo gaaraysay ilaa 9 ayaa waxaa la sheegay inay qaarkood ay ku hoobteen gudaha saldhigga, halka kuwa kalena ay ku dhaceen xaafadda buundaweyn iyo howlwadaag ee magaaladaasi, halkaas oo ay degan yihiin dad badan oo shacab ah. sidoo kale wararku waxa ay intaasi ku darayaan ciidamada jabuuti ay dhankooda ku jawaabeen madaafiic kuwaas oo ku dhacay duleedka magaalada beledweyne. qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahintu waxa ay shaaciyeen inay maqlayeen jugta hoobiyayaashaasi islamarkaana ay soo wajahday cabsi xoogan. macadaylaa iyo hadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaasi madaafiicda ah ee ay isu weerarsadeen saacadihii lasoo dhaafay ee xalay magaalada beledweyne al-shabaab iyo ciidamada amisom. xilli habeen ah ayuu weerar ku dhacay, waxaana taas ay keentay in dadka badankood ee ku dhaqan gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne ay walwal xoogan muujiyaan. madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya ayaa mar kale war ka soo saartay ciidamada Itoobiya ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya kuwaas oo aan qayb ka ahayn amisom iyada oo baaq u dirtay beesha caalamka. madasha oo bayaan ay soo saartay ku soo
dhaweysay go'aanadii ka soo baxay shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya looga hadlay ayaa ku celcelisay baaqii 13kii May ay soo saartay kaasoo lagu dalbanayay in ciidamada Ethiopia ee aan qaybta ka ahayn howlgalka AMISOM laga saaro gudaha dalka. Madasha waxa ay ka mahadcelisay in la cadeeyo tirada dhabta ah ee ciidamada Midowga Afrika nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya, ciidankaas oo tiradiisu tahay 19,626 askari. waxa ay sharciyad u haystaan in gudaha Soomaaliya ay ka howlgalaan ilaa 28 February 2021 si ay gacanta ugu geystaan in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah ayaa lagu yiri qoraalka madasha, iyadoo sidoo kale madashu intaas ku dartay in ay ka walaacsan tahay in lagu xadgudbay qarannimada Soomaaliya, siyaasadda dalnimo, madax banaanida siyaasadeed iyo cunqabateynta hubka ee Soomaaliya lagu soo rogay 1992 ee tirsigiisu yahay 733 iyo qaraarkii qaramada midoobe ee 252 oo soo baxay sanadka 2020. gabagabadii qoraalkan oo toos ugu socday beesha caalamka iyo qaramada midoobe waxaa loogu baaqay in il gaar ah lagu eego faragelinta qaawan ee Ethiopia ay ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya. ciidankan AMISOM ka tirsan ee sharci darrada dalka ku joogo iyo in dowladda federaalka Soomaaliya ay wada hadal dhab ah la furto madaxda maamul goboleedyada si loo maareeyo marxaladda kala guurka ee doorashooyinka dalka ka dhacayso sanadda 2020 iyo 2021 marka la gaaro. faahfaahinta dheeriyana waxa ay sidoo kale ka soo baxayaan dil xalay kooxo hubeysan ay ka geysteen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. dilka oo ahaa mid qorsheysan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in loo geystay mas'uul ka tirsan wasaaradda maaliyadda Soomaaliya kaasoo lagu toogtay xaafadda Jamhuuriyadda degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir, sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal. rag dilka fuliyay oo ay ku hubeysnaayeen bastoolado ayaa la sheegay inay goobta isaga baxsadeen falka kadib. sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamada ka tirsan kuwa ammaanka oo meydka qaaday. dhinaca kalena Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda dilkaasi, waxaana magaca marxuumka ay ku sheegteen Cabdullaahi Bariise. qoraal ka soo baxay Al-Shabaab ayaa lagu shaaciyay in Bariise uu ka mid ahaa waaxda canshuuraha ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya. ilaa iyo hadda ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya, gaar ahaan laamaha amniga oo ku aadanaa dhacdadaasi. kooxda Al-Shabaab ayaa inta badan dilal qorsheysan waxa ay ka geystaan meelo badan oo ka tirsan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, kuwaasoo mas'uuliyiinta dowladda iyo askar dowladda ka tirsan isugu jira. Ilhaan Cumar oo ka tirsan golaha Koongareeska dalka Mareykankana waxa ay shaacisay inuu aabaheed u geeriyooday cudurka safmareenka ah ee coronavirus kaasoo faraba'an ku haya wadamo badan oo uu ka mid yahay dalka Mareykanka. war-saxaafadeed ay soo saartay Ilhaan oo ka mid ah siyaasiyiinta safka hore ugu jira la dagaalanka COVID-19 ayaa waxa ay ku sheegtay in aabaheed Nuur Cumar Maxamed uu u dhintay xanuunka, iyadoo intaasi ku dartay inay dareemayso tiiraanyo xoogan. anigoo dareemaya tiiraanyo, xanuun iyo murugo badan, waxaan idinla wadaagayaa in aabahay Nuur Cumar Maxamed uu u geeriyooday COVID-19 ayay tiri Ilhaan Cumar. sidoo kale waxa ay tilmaamtay in aysan hal eray ku qeexi karin waxa uu uga dhigan yahay Allah u naxariistay aabaheed, oo ay sheegtay inuu door weyn ku lahaa horumarka ay ka gaartay haatan halka ay ka marayso. siyaasad ahaan marka loo eego dalkaasi ma jiro erayo aan ku qeexi karo waxa uu aniga iiga dhignaa iyo dhammaan dadka garanaya isaga ayay mar kale qoraalkeeda ku tiri xildhibaan Ilhaan Cumar. Ilhaan Cumar aabaheed ayaa ahaa oday si weyn looga yaqaano lagana qadarin jiray Minneapolis, wuxuuna ka mid ahaa jameecada masjidka Rawda halkaas oo uu ku dukan jiray salaadaha. sanadkii 1995 ayay qaxooti ahaan ku tageen Mareykanka iyada iyo aabaheed oo ka yimid markii hore Soomaaliya, kuwaas oo Soomaaliya ugu tageen dagaaladii sukeeye ee xilligaasi ka soconaya dalka. ugu dambeynna wararka laga helayo gobolka Sool ayaa sheegaya in Somaliland maanta ay ciidamo dheeraad ah dhigtay jidadka magaalada Laascanood, kuwaas oo bilaabay dhaqdhaqaaqyo cusub. ciidamadan oo isugu jira booliis iyo military ayaa waxa lagu waramayaa in xaafadaha magaaladaasi iyagoo wata gaadiidka dagaalka ay gaafreegayaan. wararku waxa ay sheegayaan in ciidamadaasi loogu talagalay inay ka hortagaan dibadbax laga cabsi qabo inuu ka dhaco Laascanood, kaas oo
lagu soo waramayo ama ujeedkiisu lagu sheegay in looga soo horjeedo wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland ee dib uga furmay dalka Jamhuuriyadda Djibouti. Sidoo kale wararka qaar waxa ay sheegayaan in ciidamadu ay xirxireen qaar ka mid ah dadka abaabulaya dibadbaxaasi. xaaladda ayaa lagu soo waramayaa inay aad u kacsan tahay iyadoona laga cabsi qabo inay isku dhacaan maamulka gobolka Sool ee Somaliland iyo sidoo kale dadka deegaanka oo la sheegay in intooda badanba ay ka soo horjeedaan wadahadalada la sheegay in Somaliland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya kaas oo ka furmay magaalada Djibouti ee dalkaasi Djibouti. waxaana la sheegayaa in xaaladdu maanta Somaliland aysan ahayn amaba ay tahay mid aan caga badan ku taagnayn. inta badan dadka shacabka ah ee ku dhaqan gobolka Sool waa gobolada Sool iyo Sanaag ee waqooyiga maamulkaasi ayaa la sheegayaa in xaaladiisu ay maanta ay tahay mid aan caga badan ku taagnayn.